barnaamijka maanta waxaynu kaga hadlaynaa nin oday ah oo ku noolaa tuulo ku taala waddanka Zimbabwe ayaa wuxuu go'aansaday inuu seexdo isagoo albaabka guriga u furan yahay xilli habeena. Isla habeenkaas 6 waraabayaal ah ayaa qolka ugu soo geli doona ninkan odayga ah kana jiidan doona meesha isagoo nool ayayna cunayaan. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto isla markaana aad ku soo biirto channelka. Kani waa weerarka arxadarada leh ee waraabuhu ku silciyay Mr. Tendai Mika. Soo dhawaada daawadayaal. Dadka waxaa had iyo jeer loo sheegaa inay feejignaan muujiyaan markii ay cidlada joogaan, isla markaana ay ka digtoonaadaan khatarta ka imaan karta xayawaanada duurjoogta ah. Laakiin qof malaysan karo ma jiro isagoo gurigiisa ku jiro inuu bahal soo weeraro. Laakiin ninkan odayga ah waxay u muuqataa inaan waxaan la filayn ay ku dhaceen. Afrika waa qaaradda ugu xayawaanada badan adduunka oo idil. Waxaa ku nool in ka badan 1,000 nooc oo xayawaanada naasleyda ah, 60 nooc oo xayawaanada micida wax ku dila ah, 100,000 oo nooc oo cayayaanno ah, 3,000 oo nooc oo kalluun ah, iyo in ka badan 2,000 oo nooc oo shimbiro ah. Laakiin xayawaanadaas waxaa kula nool qaaradda 1.4 bilyan oo bani aadam ah. iyadoo tiro badan oo xayawaano iyo dad ay isku meel ku wada nool yihiin. Taasi waxay keentay xurguf u dhaxaysa xayawaanada iyo dadka. Isdhexgalka xayawaanada dilaaga ah, khaasatan kuwa micida wax ku dila, iyo dadka ayaa korortay, taasoo had iyo jeer keenta geeri aan la filan karin. Tuulo ku taala baadiyaha fog ee Zimbabwe waxaa ku dhacay waxaan la malaysan karin ninkan odayga ah. Tendai Mika wuxuu ahaa 87 jir ku nool tuulo yar oo ku taala baadiyaha fog ee gobolka Chiromanzo, bartamaha waddanka Zimbabwe. Tendai noloshiisoo dhan ayuu ku qaatay tuuladaas, wuxuuna ahaa beeraley. Run ahaantii wuxuu ku noolaa nolol iska simple ah. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu ahaa mid habbi ku ah noloshiisa, wuxuuna jeclaa deegaanka iyo dabeecadda uu ku nool yahay. Cumrigiisoo dhan Tendai wuxuu arki jiray noocyada kala duwan ee xayawaanada sida libaaxyada iyo shabeelka. Nasiib darro, xayawaanadu ma aha kuwa dareen naxariis leh sida dadku kale. Haddii ay fursad kugu helaan, way ku soo weerarayaan iyagoo ku arko inaad tahay cunto si fudud lagu heli karo. Tendai waxay u ahayd maalin caadi ah. Wuxuu u soo lugayn jiray beertiisa had iyo jeer maalin kasta. Nasiib darro, Tendai wuxuu ku noolaan jiray keligiis guri yar oo cariish ah. Waxay ahayd xilli fiida, cimiladuna kulushahay. sidaa darteed ninkan wuxuu jeclaystay inuu guriga albaabka u furo si uu u helo neecawda qabooban. ninkan odayga ah maadaama uu daalanaa beertana uu ka imaaday, in yar ayuu damcay inuu nasto, laakiin hurdo ayaa la tagtay. saacado markii la joogo kadib, waxaa dhinaca keynta ka soo muuqanayo 2 indhood oo cascas, iyadoo ay tahay xilli mugdi gudcur ah. isla markiiba indhaha ka soo muuqanaya mugdiga way soo bateen. waxaa jiray qosolka waraabayaasha, waxayna ahaayeen kuwa gaajaysan. Tendai gurigiisa wuxuu ku yaalay meesha ugu shishaysa tuulada, taasoo ka dhigtay mid hadaf u ah waraabayaasha. wuxuu ahaa keligiis oo haddana ah oday aan tabar lahayn. waraabayaashu waxay ogaayeen inuusan isdifaaci karin haddii ay soo weeraraan. inkastoo dadka qaar ay u arkaan in waraabuhu yahay midaan ugaarsan karin oo cuno xayawaanada kale waxay diloodaan, run ahaantii waraabuhu waa mid xirfad u leh ugaarsiga sidoo kale. wuxuuna dhererkiisa gaari karaa 2 mitir, culayskiisuna 82 kilogram. waraabayaashu run ahaantii waa xayawaano argagax leh. markii ay waraabayaashu ku soo dhowaadeen mudulka ninkan uu degan yahay, waxay arkeen albaabka guriga oo furan. markii u horreysay way ka yara istaageen. sannado badan waxay ahaayeen kuwo ka cabsada dadka. si kastaba ha ahaatee, dadka oo deegaanadooda soo galay iyo cunto yari soo wajahday ayaa waxay ku qasabtay inay khiyaaraad kale eegaan si ay cunto u helaan. hogaamiyaha waraabayaasha, alpha female oo ah dhadig, ayaa ahayd midda ugu horreysay ee soo gashay albaabka. sanka ayay la soo raacday shiirka Tendai ilaa ay sariirtiisa imaaday. waraabayaashii kale oo dhanna guriga ayay soo wada galeen iyagoo shiirinaya Tendai. isla markiiba waraabayaashii waxay go'aansadeen inay cunaan Mr. Tendai, iyagoo ka faa'iidaysanaya fursadda ninkan jiifa. waraabihii dhadiga ahaa afka ayay kala qaaday, waxayna soo bixisay ilkaheeda waaweyn. waxay ku qabatay ilkaheeda xoogga badan lugta Mr. Tendai, qaniyo aad iyo aad u xoog badan. isla markiiba ninkii odayga ahaa wuxuu soo booday isagoo cabaadaya.
xanuunka qaniyada ma aha wuxuu weligiis arkay isagoo argagaxsan ayuuna qaylinayay waraabihii wuxuu bilaabay inuu ka jiito Tendai sariirtiisa mana uusan awoodi karin inuu iska fujiyo qaniyada xoogga badan wax micnaha ma samaynayn si kasta uu isugu dayay inuu harantiyo isagana fujiyo waraabaha ma aha mid si fudud ku sii daynaysa cuntada ay gacanta ku dhigtay wax yar kadib waraabayaashii kale waxay bilaabeen inay ku soo xumaan Tendai iyagoo weliba qoslaya Tendai xoog ayuu u qaylinayay si ay dadka u maqlaan gurigiisa oo ka fog guryaha kale ee tuulada ayaa waxay sababtay inuusan qofna maqal karin qayladiisa waraabayaashii waxay sii wadeen inay Tendai ka sii jiidaan gurigiisa oo ay la aadaan duurka cidlada ah kadibna markii ay dareemeen inay fogeysteen waxay bilaabeen inay cunaan jirkiisa labadii maalin ee xigtay dadku ma aysan dareemin Tendai maqnaanshihiisa maadaama gurigiisa uu ka fogaa tuulada uuna ahaa nin iska oday ah oo inta badan aanan tuulada u soo dhaadhicin dadka tuulada ma aysan dareemin inay wax qaldan yihiin maadaama ay arki jireen Tendai oo marmar tuulada imaada si kastaba ha ahaatee markii la gaaray maalintii uu Tendai iman jiray tuulada dadku ma aysan arkin markii ay sugeen saacado badan oo aysan jirin wax calaamad ah oo muujinayo inuu imaanayo dadkii tuulada ee garanayay waxay bilaabeen inay walwalaan iyagoo niyadda wanaajisanaya oo isleex waad u tegaysaan Tendai oo nabad qaba koox dad ah ayaa soo aaday gurigiisii mar allay markay soo istaageen mudulkiisii waxay indhaha ku dhufteen dhacdo argagax leh meeshu waxay ahayd meel aad iyo aad u qaabdaran wax kastana way jajabnaayeen meel kastana waxaa daadsanaa alaab iyo dhar waxaana ka muuqday raadka waraabayaasha guriga gudihiisa iyo dibaddiisaba iyagoo walwalsan markaan waxay bilaabeen inay eegaan kaynta guriga agagaarkiisa ah iyagoo weliba Tendai magaciisa ugu yeeraya meel u jirta 300 mitir guriga Tendai waxaa arkay mid ka mid ah dadkii meesha imaaday laakiin ma ahayn wax lagu farxo wuxuu arkay laba meelood meel Tendai jirkiisa waa la cunay markii ay arkeen dhacdadaas foosha xun dadkii meesha imaaday waxay dib ugu carareen tuuladii si ay u wargeliyaan askarta ilaalada xayawaanada duurjoogta ah waxay ka walwaleen kadib markii waraabuhu cunay Tendai in dadka kale ee tuulada ku nool uu haddana waraabuhu cuno askarta ilaalada xayawaanada waxay isla markiiba bilaabeen inay raadiyaan waraabayaasha marba haddii xayawaanadu ay dhadhamiyaan hilibka dadka waxay isu beddelaan kuwo dadka cuna oo aan la istaajin karin waxa ka dhigay waraabayaashan kuwo aad iyo aad looga xabsado waxa weeyaan iyagoo had iyo jeer isku daya inay cunaan carruurta tuulada iyo weerarka Mr. Tendai ay ku dileen wixii ka haray jirka Mr. Tendai waa la aasay maalmo kadib iyadoo ay ka soo qayb galeen aaskiisa dadka tuulada oo dhan kadibna waxaa dadka tuulada looga digay inaysan bannaanka u soo bixin habeenkii sidoo kalena aysan soconin iyagoo keligooda weerarka oo ay saraakiishu aaminsan yihiin inay soo qaadeen 6 dhurwaaye ah ma ahayn midkii ugu horreeyay oo dhimasho sababa run ahaantii sanadkaasi xayawaanada duurjoogta ah waxay geysteen 60 weerar oo dhimasho sababay xayawaanada duurjoogta ah waa kuwo guuraya habeenkii si ay cunto u helaan taasoo marmarka qaar ku hogaamin karta inay tuulooyinka dadku degan yihiin soo weeraraan nasiib darro uma ega in wax isbeddel ah uu ku imaanayo hoos u dhac ku imaada weerarada ay geysanayaan waraabayaasha dadka cuna kooxdan waraabayaasha ah ugu dambeyntii waxaa lagu arkay meel u dhow tuulada halkaas ayaana lagu toogtay si loo badbaadiyo dadka inkastoo tani ay ahayd dhammaadka murugada leh ee waraabayaashan waxay ahayd sida keliya ee lagu hubin karo in dadka tuulada ay ka nabad galaan inay la kulmaan dhibtii ugu dambeysay ee naxdinta lahayd